marka koowaad waxaan u mahad celinayaa runtii maamulka jaamacadda bariga Afrika iyo ardayda oo ka shaqeeya barnaamijkan kulankan iyo hoolkan iyo in waqtigooda ay u soo huraan bangiga Amal iyo barnaamijkan inaan isdhegaysano jazakumullahu khayran waxaan rabaa barnaamijka nuxurkiisa waxaan siin doonaa gudoomiyaha bangiga Said Ali Shire oo wax fara badan business iyo dhalinkaab ka qoray afkaar badan ka dhihi doona laakiin waxaan rabaa inaan u sii furfuro oo wax yar aan mafaahim yar aan idin la wadaago oo matalan hordhaca gobol xaar horta si guud markii la bangiga Amal ma aha bangi ganacsi keli ah barnaamijkan oo kale iyo barnaamijta la midka ah barnaamij education ama tacliin oo bangigu u talagalay dadka mujtamaca inuu kor u soo qaado mujtamacan wuxuu ka mid yahay mujtamacaadka dunida ugu thaqaafada yar ama ugu aqoonta yar mujtamacaadka ugu aqoon yahanada yar mujtamacaadka ugu jaamacadaha yar nin doctor saaxiibkay oo waxa jiray waa dhaweyto iga sheekeynay Boston inuu booqday Malaysia professor ka yahay yar Soomaaliya marka wuxuu ku takhasusay theology ama adiyaanta marka School of Trinity Harvard ayaa marti qaaday iskuulka adiyaanta ama ilaahiyada marka Boston uu tagay wuxuu yiri wakiilka xawaaladaha shirkadaha Soomaaliyeed mid kamid ah ayaan ka codsaday yiri inaan uu igu soo wareejiyo shanta jaamacadaha ugu waaweyn magaalada marka wuxuu yiri 60 jaamacadood oo public ah oo mid kasta campuskeeda u baahan tahay nus saac hal saac in lagu soo wareego ayaa magaalada ku taalo yiri jaamacadaha Mareykanka ugu waaweyn 60 marka waqti inta dhan ba haystaa saan hal maalin haystaa hal maalin haystaa laba jaamacad bas aan tagi karnaa ma yiri marka waxaan fahmay farqiga Mareykanka dunida waxa sameeyay in education ka talaano magaalada Boston keligeed yaa 60 jaamacadood oo public universities ay ku yaalaan innagana dhammaan qiyaasi kartaa marka tacliinta inaan mujtamaceena wax barno aan ku qasbanahay bangiga Amalna waxyaalaha uu go'aansaday waxa kamid ah haddaan la soo saarin aqoon-yahano ganacsato yar mustaqbalka dadkii hogaamin lahaa dalka inuu bangigu meel gaari karin Soomaa marka bangigu wuxuu wax ku noqon karaa ummad jirto oo maskax leh markii dad aqoon-yahano dhalinyaro ay soo baxaan oo ganacsi sameeyaan institutions ay abuuraan isbitaallo waaweyn waxyaalaha standard ay develop gareeyaan markaas ayuu muxuu ahaa bangigu iyo awoodi karaa inuu development sameeyo laakiin waxa suu gudoomiye Said oo marar fara badan dadkii han laha wax loo tara yaana dadka han kale waa maxay dadka wax raba marka dhalinyaradu inta yar yihiin baa fiican han ay yeeshaan oo matalan waxyaalaha aan aad ugu dhaleelo waxa kamid ah macallin baan ahay moogtay ardada su'aal waxaan weydiiyaa inta PhD rabta gacanta taaga يعني هذا باجلار ku jirtaan ama master baa laga yaabaa yaa raba inay sii socdaan marka waxa laga yaabaa tira yar baa laga yaabaa inay gacanta taagto oo ka go'aanta hadda ma waan rabaa iyo waan jeclaan lahaa go'aan marka waxa jirta Amin Aamir kaartoomada yarka uu sameeyay iyo xusba bardhigay laba kaartoon hadda ka hor Afrika markii la joogo inta madaxweyne rabta gacanta taaga marka ardayda dhan baa gacanta taagta laakiin dunida kale markii la joogo inta ma taqaana madaxweyne inay noqoto rabta laba taagtay tusaale marka labaas karikateer muxuu ahaa kaartoon bi soo barbardhigay hadda ka hor 2011 kiineed barnaamijka 2012 dadku iska wada jecel yihiin qof kasta inuu wanaag iyo meel fiican gaaro laakiin qof inta warqad iyo qalin qaata qorta waxaan rabaa 2050 ka inaan waxaas qabto Said baa lahaa muxuu ahaa wuxuu qoray hadda 2050 iyo Soomaaliya say kaan doontaa waa ka dhageysan doonaa insha Allah waxaan rabnaa marka in hal arin maskaxda laga bilaabo caawa ama horey baad u lahaydeen hadii aadan ambitionkaaga uu ku qornayn konton ka sano hadii ilaahay umri ku siiyo umrul ghalib waxa la qofku productive aan karo 75 sano 75 sano shalaatan ka hore waxa la dhahaa waa iska dhalinyaro qofku oo waqtigiisa aad uga faa'iideysto waa inta uu fahmayo nolosha iyo dunida laakiin waxa la rabaa konton ka sano soo socto konton ka sano ugu dhibka badan in aad noloshaada qorshayso sida aad rabtana ugu noolaato marka waxaan soo jeedin lahaa qof kasta oo qoro ma aha fiir ku fakar ma aha waa qor bay dhahan daraasad badan baa laga sameeyay wixii qoran buu qofku fuliya aslan oo xusuusta qoro qolka jiifka sariirta agteeda ku dhajiso marka si seexanaysana fiir marka soo kacdana fiir qoraalkaaga waxaan rabtaa konton sano hadda kadib inaan saado u akaan doontaa sababtoo ah Soomaalidu dhahan qof han yari maxay ma hana qaado yaana meel ma gaaro qof han yari qofka han kali waa qofka aakhirana doona muxuu ah fardoos al-a'la meesha ugu sareysa adduunyadana sharafta ugu wanaagsan inuu ku noolaado marka waxaan rabnaa sidii muxuu ahaa ninkii laga sheegay maamaadi carabiga ahayd
قف كست أو عاو هل كان فدينه هذا رجل ذو همة يحيي أمة قف كي همد له أمة ضم بدل كرا قف كي همد له أمة ضم بمترك يبدل كرا بدل كو سمعين كرا مركا وين المتقن أنا قلنا دالين يرى المسكح ضوضو أي ميل فوق جرته لكن مقار كودي جر كودو ودت كنور مالك عاد حجوجه مركو حيدان think globally act locally يعني ما حي عالميا كفكر مركا أد جوان قاضنا يسو مركا أد مستقبل كرتنا ترتنتو international level كفكر إن المستقبل كمحموها نقطة شخص عالميا ترتم هذا دكتور نقول يسو هذا business owner هذا accountant هذا lawyer هذا هو واحد دون قف يعني الدنيا دورنا معنا كل حكوسة كردية لكن طبعا قانا ما كان قاضنا يسوي مثلا ذلك الحين سجلت قف ذلك كمدات كاي ambitious إنها تها مهمة وحان ربا إن وحير مرة كافتيميو واللي نوصل فاين دونا قف كمرك ونرش سقرشين يلح شيء إنه قرشية مهمة لح لنا يعني نلعب كوضع محي وعقيدة دهاني هذا أما spiritual aspect قيبة الروحي على الجانب الروحي قف وأنه develop قريب ولو قرشوا دجيود قرطاه ما هنا نحن كفكر ما وين قرطاه spiritual development أما الجانب الروحي سيكون develop قرنا لا إمس بوه إمس كتاب وعقيدة أنا لا يقرأ أنا آخره إمس كتاب وحال يقرأ عبادة أنا آخره صلاة إمس كتاب بعد كآخرين صونك أما محوها عباداتك at least هالكتاب لو كتاب صدق كتابات كآخره عقيدة أو يرى لو كتابات كآخره يعني أقرشه وحي إن محوها اسكت أنا تفسير كذا لا تنجس تبنجس هذا آخرته بخاري كتاب يروح حاجة مختصر بخاري للتجريد الصريح وكلات كارسته ويران هداد محو 40 كي أبا جمره أسف يعني بلوغ المرام عمد الأحكام كا أتقانو قرشاي كوجو جرتو وين قرشاء اللذة أو دقيسته مركز جانب الروحي قفك مسلم كقفك استودوني إنه نجح نولش يا آخري الدنيا بقى وإنه جانب الروح وأنا الأهم نمبر 1 ويا أسوي واحد كحريهن إنما يخشى الله من عباده العلماء مدة الله وحيدها هو education وحالها نعمت سبحانه وتعالى إنسان كسية نعمة كوباد والإيمان نعمة الإيمان نعمة كلو حالها ونعمة العلم سا حالها يا كحجة نعمة الصحة يعني ملايين يا نعمة الماء أهلي باجرته هي نعمة المال شنتان نعمة ما تذكر أنت وحي هذا حسستان بالها نعمة المال لكن نعمة الإيمان هي نعمة العلم وعلمي وحلوه من واحد كستوردن وشيء كلي إيمانك هو قامين كرالي هذا صار وسهرنا وسحرة فرعون صومهين يعني يجوا علمي وحن يقان هذا إيمان بوه قامين مركا education كحكاجة بهنا القرشة ودجسه يعني مستقبل كهدي أنك سوق قادنا إلهي إنه كسينا برودكتيف هتقف على صاريا كنت سنة صعدة نيدا نجش سيد الرسول صلى الله عليه وسلم حديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي كنت سنة صعدة ده قلت لك شو مدة إن حقباته وحكسوا كرديس المسلمين تا إنسانية ده وهو بالنا ثالثه إلهي وحول سبحانه أدونك يقول جاي يقين صدق وحول في الشوي جهريا مركز تعليم تحط بانت أنا قرشيسه باجي الأرض ما أنت دقتها مستر دقتها محا تخصص كهربتها محا تخصص دونتها محال رأينا الفهم العام كقاعدته الفهم العام لمختلف العلوم أما جرنا نولج إنها كقاعدة محال الربع محال سبيسيفيك وتخصص مثلا حركة سنين دخترة ما قبر دخترة ده أو تخصص كذا محوها آد وقفي عن حدنا شيخ أو كتب تأخرية وشيخت وأنا دخترت ومحوها واللوير وأنا دخترت وحلا وشيخت كتب تأخرية وذلك الداعية تبليغ مارة مثلا حركة تبليغ وحلا آد وقفي عني وحكم ده جانن يدختر انجينير بوليتيشن سياسي حلبان تبليغ صعودات حركة وعدينية وبرامج في عن يعني ولا مريخ أركضين علماء سوء خلافان وسيلة يقاب كيوفرينيان لكن محا إكسلنتيا قف كسو بروفيشنال وشقدي سفلينيا هدانا إنه محي ومجتمع وشقي وناقي دعوة كشقي مركا إديكيشن كل حاجة بهاي هاي إن أدوحنا بروفيشنال قرشيسو محا تخصص كون غنايا فهم عامنا الله أو قانون كنا نحكي كفهم سنين أديكو إيكونوميست مثلا قانون كنا نحكي كلمة سعودية business administration كنت تخصصت قانون كنا نحكي كلمة سعودية صح ما هي دهان مدة لو بحال ده وين أدوحها قرشيسو social aspect مجتمع ما تسوق رين دونتا
ماليزيا مركان أرضي كأها وحيالان أدو جعل يستوحى كم إذا قف كست أو جامعات اللي توحى قصب لوجا دي جري وغيران شن أورور إنه حبين كيا ما كسانا لو وصينا وحدي جن سوشيال أكتيفيتيز كا ما كسانا لو بحنايا أورور كمثلا دعوة ده أورور كوعي جلين تدلين يردا أورور كتولوين كفوفق وحاجر أورور كدلين يردا وعي جلين تولوين كفوفق يعني فافيلتشز يديه جيران داليرو حاجه توحكل aan qabanin mar alla markay jaanis yar helaan tay basas qaataan oo baabuur kireystaan yay tuulooyinka tagayaan oo soo wacyi gelinayaan dadkaas iskala soo hoyanayaan way la seexanayaan darmaha say dhiganayaan laba faa'iido ku jirta marka in qofku horta nolosha miyiga iyo tuulooyinka uu soo fahmo in dadkaas wax lagu kordhiyo oo muxuu ahaa loo geeyo waxyaalaha magaalooyinka waaweyn yaalla inagu runtii ma dhihin waxyaalaha fiican maxaa ka mid ah ururka nadaafada ururka dhalinyarada ururka haweenka ururka muxuu ahaa wacyigelinta ururka dhiirigelinta tacliinta ururka muxuu ahaa dadka masaakiinta danyarta in wax loo ururiyo mesela dadka hantida haysta in wax laga qaado oo waxyaalaha ma zaad aan alxaaja waxyaalaha dhahan mesela dalalka qaar kood oo kale in wax laga qaado dadka wax kasto aad ka maarmi karto kabo dhar muxuu ahaa caaga joodari waxa doon xaafadanta laga qaado dadka u baahan loo geeyo ur noocaas ka jira boorama bas aan ku arkay Soomaaliya ururka dhalinyarada noocaas oo kala xaafadaha ay ku wareegaan waxay ururiyaan waxyaalaha yarka xaafadu ka maarmi karto laba qol bay kareystaan way ku diyaariyaan kadib bish markay dhamaatay xaafadaha kale u qaybiyaan waa barnaamij fiican runtii social maxaa ka qorshaysan imise urur baad ku jirta hadaadan hal urur ku jir meel uma socotid sababtoo waxaa la rabaa mustaqbalka sida hogaamiye u noqoto wax u tarto waa inaad muxuu ahaa hadda aad ku sii tababarataa ururo lagu doortaa wax doorataa hogaanka si wax loo hogaamiyo si loo hogaansamo loo wada barataa waxay dhahaan مثلا inkastoo gudoomiye Ustaad Saciid uu joogo uu qoray buugga la yiraahdo hogaamiye isbedel horseeda ma jeclina mataqaanada waxay dhahaan hal libax arkis maxaa la dhihi jiray laakiin waxay dhahaan qofaan qaacido waxa jirta ahad sheekh qofaan hogaansami karin wax ma hogaamin karo fiir qof ki doonay inuu wax hogaamiyo waa inuu bartaa si loo hogaansamo marka xageed ku barane dhalinyarada iyo ururada iyo activitieska dadku way ka cararaan muxuu ahaa in urur laga mid noqdo aan waxaan qabaa inta urur kali garta gal laba urur iska soo jeeda labadaba gal yaa ku diidaaya gal labadaba wax diidaaya ma jiraan waxa kana waa la fulan kan in wanaagsan ku jirta kan in wanaagsan ku jirta waxaan awoodi karaa saddex xarako islaami ah jirta saddex aan ku beero haday iga yeelayaan Sooma haday iga yeelayaan marka waa loo baahan yahay Sooma aad u maasanta dhinaca kale u baahan ma taqaana in la hormariyo waxa kamid ah financialka inuu qofku qorsheeyo financial development ama aljanib almali hadda ina qorsheeyo u baahan tahay waxaan rabaa hadda ka hor nin saaxiibkii oo jaamacadda simadkooda shaqeyn jirnay yaa maalin ii yeeray aan malaynayo 2010kii wuxuu inuu hal culays baa haysta ilmihii jaamacad bay gaareen waxaa la iga rabaa bil kasta qarashkayga markii muxuu ahaa aan qiimeeyay $3,000 baan u baahanahay bil kasta dakhilna waxa soo gala $1,000 marka bashiro halkeen bi ada account ku takhasusay marka waxaan ustaadada waxay ahayd inaad 10 sano ka hor soo qorshaysay ahayd ma aha wax bayna leeyahay wadxaa miya bayna cashiyada wadxaa wax lagu qorshayn karo yaana waa ina hela $3,000 maanta monthly it's not easy waxa la rabaa marka hadda inaad qorshe dejiso dhalinyaraatiin 50 sano 60 sano 70 inta rabta adigu meel ku qoro waxaan rabaa inaan productive ahaado inta ilaahay umri si ka soo qaad in ilaahay 70 sano kale ilaahay ku siiyo oo 100 aad gaarto Soomaa waxa la dhahaa dadka hadda مثلا madaxda qaar badan waxaan aqaan 9 jira oo shaqeeya ra'iisul wasaaraha waxa kamid ah muxuu ahaa Malaysia 93 soo jiru doorashada galay uu ku guuleystay Soomaa waana shaqeynaya runtii isbedelku wadana wada yaabaysa waa gaari kartaa oo dad caafimaadka ku daasho waan soo socnaa caafimaadka laakiin financial waa hadda qorshaysaa financial afar area yaa laga rabaa inaad qorshe mid ku tala gasho hadda afar shay waxa la dhahaa dhaqaalaha waxa laga helaa inaad shaqaale tahay ama self employed waxa dhahaa adigu qof xirfad yar abuurtay ama ganacsi u shaqeynayo ama maalgashi qof ku fiican koowaad waa maxay waa inaad shaqaale noqoto مثلا aad raadiso shaqo fiican mushaar joogta bil kasta aad ka hesho marka qorshe u baahan tahay shaqada maxaa fursad leh ugu yaraan laba area inaad ku takhasusi karto oo aad مثلا aad dhigi karto shaygana aad barato tusaalahaan caafimaad oo kale dhacna business administration isku darto maxaa diidaya waxa jira مثلا waxaan u jeeday gabar muxuu ahaa xarun ku leh magaalada Muqdisho clinic bay leedahay madrasa quraanna way leedahay qiraa'adkana way taqaanaa
dhinaca kalena waa maxay laboratory ka baxday marka dhinaca shay baar bay samaysaa dhinacna dugsi qiraa'adka lagu bartay leedahay labada ka shaqaysaa waa laba mu'asaso Soomaa marka inaad hadda ka sii fakarto wixii aad mushaar ku heli lahayd marka ima inaad shaqaale noqoto ima self employed waxa lahaa qof asoo xirfad yar samaystay su'aal ahaan dhakhtarka oo kale lawyer oo kale accountant office u furan yahay engineer guryaha naqshada iyo waxa uu sameeyaa مثلا self employed waxa gabadha burkiyeri iyo sameeyay waxyaalaha la isku qurxiyo waxa soo dhamaa maxay waa self employed laakiin labadaas hal ceeb bay leeyihiin waa fiican tahay waa meel khibrad iyo lagu kasbado muxuu ahaa skill oo dadka la shaqeynaysa laakiin ceebta leedahay waa maxay waxay ka rabtaa physical inaad meesha taagan tahay maalin kasta يعني هذا سو شق تجين واحد دخل أمه ليسن لبعض كلام مركوا محدين على كلام أو يجوا نيدهان وفي عينهن مركي لو financial independence جا وإن مثلا جناحسي عسميسا جناحسي يرنا دبورته دور قفا كعش قيسة هذا سفرته هذا استال كجرته هذا الحيس تاعي هدي عاد والد صوب وقاني سي قرابة جناحسي وكوش قينا يعني income generation يبزنس كعو سمينا يا لكن طبعا هذا سوبرفايز جراني التلفون بدكوها جيسا وتاجنانيسا واسمه وجرت فيزيكالي إن جوكتو إيه إن محو التلفون كوها جيسا إن قرشة سمايسا إن سوبرفايز جريسو واتسمين كرتا كاسوا محي محو كيف في عينها مركا أديكو أن فيزيكالي جوجين أما جرهان مش جوجين يجنحسي كوش قينا يا إنفستر أجرا إنفستر لكن أنت بدو حاس سماية ده هنقف جناحسي خبير كوه سوق جناحسي وأنا مثلا حوار العجاء هستا جناحسي مركز إيريا ده أما سكتر هذا معاش في عن له أما شاركه ولا جف إيديه أنا أكون درسته قال أكون درستي مدة يكون شقيسي حوار كلبح شركات كلا كف إيده بدن بعرت جشوا وحارت مقالوي كقار جريوه أي قيمة له دولك كجابا وحارت بدي عير وقاد مقالة لو جبهان الدرسو قالوا صود السنس صودكسو مركو حيد هن لحدا إيريو أفرتاس عنده أفرتا إيريو ميت كم وانا كنت لقى شهادة كنت لقى أنا هذا مثلا الشقالة نمكو باللوضو دور سنة كدبنا محوها عاد وجود بتبزنس بيرسون أما محوها إنفستر هذا وجود تيا في عم بيدهان مدة الأوضة بيسوا محي وهيلث بلانين أما عافمات كأجا إنا محوها رالي هذا ندي أي جوجان أرضي عافماتك عافمات كأجا نقرش سو كهرباء هذا النوع عافمات كأما جركا وسوء كان دون وحيالها أي مثلا أنا سيبرة هذا وحيالها مثلا نفقة قفك السيا ليف شيت كمحا ورون علاش محا ورون محا جركا ورون محا قروح له محا كان ترى ضدك بموت هذا واحد كسر إسكع عنتون صومالي هذا واحد كعنين به والله عنا ده إسكع عنتون سجالك في دماغه ساحنا وحارتي محوها برور إذا ديار سمارس إسكعون إسكع ساحون ذن هذا يقولوا كوليسترول كم تقانا عركة مريا دي كرباك ودعي مركي محوها ضدك هذا حركة مثلا قفكي حد صور اللي يرأسي باللعبينه عافمات كيسة كنترول حل محد عنتوين كقار سير مسنكر بعض قبته سيد دق هذا دق ميسا محد دي ده دق ما دام الله صعدين هذا الله صيد مسيد دقيق محد دي ده هذا وين نسيقر شيء سنقف وحركة مثلا جركي سفتي ما شاء الله iyo qof waxa ka soo wax kasta oo aan sinnayn gadaal iyo muxuu ahaa oo kala dheer marka ma fiicna inaad kala dheeraato waliba Soomaalidu ma taqaana ragga dabcan gaar ahaan markaan ragga nahay xogaa caloosha iyo meelo gooni ay u fidaan marka dibkaas uu nahaystaa marka hadda inta dhalinyarada tahay ama exercise badan samee hadda cuntada aad control karin oo aad u jecesha inaad iska cunto wax kasta nin macallin ahaan jiro hindi ahaan habeen sagaal fiid waxaanu isoo bariis iyo digaag iyo ukun isku cunaya waxaan ditoore waa maxay saacada wax cunayso sagaalka fiidnimo inta oo ukun ah rasi waa jeclahay wali dhaqaatiirtu waxay dhaheen biyaha cunin haddii shanta galabnimo la gaaro wax liquid aan ahayn cunin baa la yiri laakiin waa jeclahan saaraba nooca haddaa tahay waa inaad exercise badaan samaysaa waa inaad 4 saac ay kugu jirtaa مثلا saacad ama 2 saacadood oo aad gymka ku jirtaa ama aad orodaa marka qorshe wuxuu kaaga baahan yahay gurigaaga waxyaalahan aad ula yaab waxa kamid ah Soomaaliya markii la joogo cuntooyinku balanced ma aha yaana mesela waxa arkaysaa baastada cunto fudud adoorkii baa la cunay cambuulada cunto culusna habeenkii la cunay cagsi inay ahayd Sooma yaana in digirta iyo soorta iyo hilibka iyo waxaas maalin la cuno laakiin baastada iyo bariiska waxyaalaha fudud habeenkii la cuno waa qorsheysan kartaa
صباح دي عنجيل على عناك يعني أدو صارت كردقو هذا صباح دي صار أنت يا كودي ده أما صباح دي عنبولي الدقير يقول لي يكون قرعته أيها وقف في عنه يا كودي ده عندنا لكن محل الربع واحد أدو أنت آخر ذي أتكون قناع ذي أو أتفهم سنت هاي مدة قدام بيسان محوها جعلان لها إنان كسوة جبجبية وحيتها هاي هل كلجر أو رنتي أصلي لا دتك موديل كا أو أن صدها يا سيدي سكان أوضح موان جعلان لها أستاذ سعيد reading كا إمي سبوك بعد آخر ذا أنا أستاذ سعيد وحنا دتك سوما وآخر كبدان بوك ميديا جزاه الله خيرا وأنا محوها وان دري بوقت سمرك أردنا ولي سوء آخرنا علامة ذا ما لها سوء highlighting يا مارت على هذا قال كودنا سكيم أنت سمعان كوردان قاعدة وحاجة تلاحظها واحد آخر ذا إيشك واحد نقول دونتان كوشيجة هذا ربطه إن الدنيا مستقبل كمعنى يالته مستقبل كاج وقرحان هذا سيدا أمل أي كقران هو أما كقراني your future our mission سيدا رجعين إن مجتمع وآخرية إلهي سبحانه وتعالى اقرأ يوحي كبر الله آخر اسمها شهادوين بدن شهادوين بدن أنا وتحكم مهم سنة عباس محمود العقاد وحنا من دكسي هو سوها استهدانا وحكم دي هيداتك دنيا فلسفة ما شاء الله كتبت أقوب بدن له مصري بوها دكسي هو سوها يستي بس شيخ محمد غزالي جامعات بس وها يستوحونها جامعاتها قوة وين دلالك عالم كمحوها إن دلالك عربته أيو فاوندرز كذا أما مؤسسين توضو أنت بدنها ركتر نكاه هنجرين هذا باجلار هيستهداد أدو حو آخر الرسالة جسم يسوع عالم بعد نقول كرتا شرط معها هذا وما سنتين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. DMI